السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوّاد أصحابي مركلة channel كان DJ سارح تيوب. قصة أنا ما أنت الناس عدسينا يا واحد قصة بسنتهاي. إن بدر هذين FIB دا مريكنكا. يدمان هذا هلا دجال ما تروجدا. يوحي قصة بسن. سيدا كلنا أي هذين عيدا كتيلان. إن بدنا كمدة دولتها الدنكا. بالله سنة كلا بدك إنه طبنكي. وحاب بلاد واحد لو يقنا داك واب كام إنترنت كمدو. إنترنت كمدو هدي أنا دين فاهيو. intiina aan garanayn waa meel laga helo wax walba oo ka mamnuuc ah website caadiga ah kale ee caalamka laga isticmaalo waxa laga helaa halkaas maandooriyaasha iyo nooc kasta oo kamid ah hubka sharci darrada ah waxaadna ka heli kartaa meesha wax walba oo maskaxdaada ku dhaca wuxuu doon ha ahaado wax allaala wax walba oo sharci darro ah oo u baahan tahay ayaad ka heli kartaa meeshaas internetkaas lagama galo waxyaabaha kale ee website-yada sida maartay Chrome iyo Google dabcan waxa laga galaa meelo kale oo u gaar ah oo ay iyagu sameysteen bilowgii markii uu soo baxay internetkaas madow ayuu guud ahaan caalamka caan uga noqday waliba markay bilaabatay lacagta la yiraahdo Bitcoin-ka taasi oo sahashay in si dhib yar wax loogu kala gato adiga oo gurigaaga jooga tusaale ahaan meeshii aad uga dirsan lahayd qof shaqaalaha inuu shaqadaada ku soo qabto waxaad adoo hawl yareysanaya aad ka dalban kartaa website-kaas ay lahaayeen burcadda madow waqtiga waxa soo baxay website lagu magacaabo Silk Road dabcan wuxuu ka mid ahaa website-yadii ugu waaweynaa ee caalamka soo mara marka la eego dhinaca maartay suuqa madow ee internetka website-ka lagu magacaabo Silk Road wuxuu soo baxay sanadkii 2010 waqtigaas wixii ka dambeeyana website-kaas ayuu caan baxay oo wuxuu noqday website-kii ugu fiicnaa ama loogu isticmaalista badnaa dhanka suuqa madow ee internetka wuxuu gaaray inay si maalinlaha soo galaan dad tiradoodu gaarayso 120,000 oo qof kuwaasoo ka iibsanaya hub ama maandooriye ama xubno bini'aadan iyo wax kasta oo sharci darro ah laakiin muddo kadib waxay ciidanku awoodeen inay soo qabtaan ninkii iska lahaa website-ka la dhaho Silver Road markii ninkaas la soo qabsana waa la xiray website-kaas laakiin ma aha maanta midka aan ka hadlaynayo website-kaas balse website-kaasi waa midka aan hadda idin sheegi doono taariikhdu markay ahayd bishii July 2014 waxaa jiray qof isku magacaabay Alpha Auto shakhsigaasina wuxuu sameeyay website lagu magacaabo Alpha B oo ka dhex sameeyay internetka madow muddo 7 bilood markuu ka shaqeynayay website-kaas waxaa la gaaray waqtigii uu shaqo bilaabi lahaa website-ku toosna uu gali lahaa gudaha suuqa madow ee internetka bilowgiina wuxuu ahaa mid cusub oo waxa lagu dhex sameyn jiray bindikaaryo la soo xaday balse markii dambe bulshadii ayaa aad ula qabsatay waana la bartay website-kii oo wuxuu noqday mid internetka madow gudihiisa caan ka noqda soona jiita bulsho badan oo ah dadka dhanka xun internetka suuqa madow u isticmaala intaa wixii ka dambeeyay Alpha Auto wuxuu bilaabay inuu soo hormariyo website-kiisa si uu u noqdo website aad loo jecel yahay dadka maandooriyaha isticmaala iyo waxyaabaha sharci darrada ahna ay aad u xiiseeyaan hub daroogooyin iyo waxyaabo badan oo mamnuuc ah ayaa lagu dhex iibinayay website-kaas dhexdiisa laakiin wax la yaab leh ayaa lagu arkay website-kaas waxa lagu arkayna wuxuu ahaa website-kaas ma ogolayn in lagu dhex iibiyo ID kaarka laga leeyahay wadanka Ruushka kuwaasoo sharci darro lagu gadayo wax kasta oo ku saabsan Ruushkana in barta lagu gado website-kaas ma ogolayn si loo moodo website-kaas in laga leeyahay wadanka Ruushka arrintaasna waxay ahayd mid maskax badan sababtoo ah ciidanku marka ay raadiyeen website-kaas waxay maleeyeen in laga leeyahay dalka Ruushka sidaa darteedna waa laga leexday laakiin xaqiiqadu waxay ahayd ninka iska leh website-kaas ma uusan u dhalan dalka Ruushka xiriira uu la lahaa dalka Ruushka ma aysan jirin waxaasoo dhanna wuxuu u sameeyay si uu u marin habaabiyo dhammaan dadka dabagal ku haya ninka website-kaas kale wuxuu ka soo jeeday dalka Canada website-ka lagu magacaabo Alpha B wuxuu ahaa website sida Amazon oo kale ah oo laakiin dark web-ka ka dhex jira waxa doonta ayaad halka ka raadinaysaa oo mamnuuca waadna heli kartaa dabcan laakiin cidda halka wax ka iibsanaysaa waxay lacagta ku diraysaa lacag aan la arkayn meesha laga soo diray iyo cidda soo dirtay toona waxaana lagu diray sida Bitcoin iyo Ethereum sidoo kale website-ka lagu magacaabo Alpha B wuxuu lahaa khusuusiyad aad u sareysa oo wax iibsiga iyo ka iibsashada halka ka dhacaysa marnaba ma aana ahayn macquul in la ogaado
sababtoo ah aad ayaa looga taxadiray labada qof ee wax kala gadanaysa in la ogaado. Sidoo kale waxyaabaha ay adeegsan jireen dadkaas waxaa ka mid ahaa habab aad cajiib u ah. Habkaas oo ahaa in meel dhexe lagu kaydiyo lacagaha muddo oo halkaa lagu ururiyo kadib inta aysan ku dhicin akoonnada ay dadkaasu leeyihiin. Waxaasoo taxadirna waxay u sameynayeen in aan la ogaanin meesha ay ku dambeynayso lacagtaasi. Waxyaabahaasoo dhanna markay sameeyaan dabcan macquul ma aha in la ogaado ama la soo dabagalo ama laga shakiyo qofka uu yahay website-kan cidda iska leh. Sidaa darteed wuxuu noqday website-kii mid aad u kobca, bulshada dhexdeedana caan ka noqda, dadkuna ay aad u xiiseeyaan, maalin walbana boqolaal kun oo qof ay ku soo biiraan. Wuxuuna ka hormaray dhammaan website-yadii kale ee noociisa oo kale ahaa. Lacagaha website-kaas laga iibiyay halkii maalin oo kaliya waxay gaadheen $500,000, waana muddo 1 sano gudaheeda markuu heerkaas gaadhayo website-kaasi. Ninka sameeyay website-kaas ee magaciisa uu ahaa Alpha O2na iib kasta oo ka dhaca halkaas wuxuu ku lahaa 4%. Macnaheedu taas waxay u dhigantaa bishii mushaharka uu qaataa in aysan ka yarayn $600,000. Sidaa darteed ninkii website-ka iska lahaa wuxuu noqday milyaneer aad u lacag badan oo hantiilo ah. Website-kiisii horumarka uu gaadhay markuu arkay wuxuu samaystay dad isaga u shaqeeya. Tiimka shaqaalaha dhexdiisana wuxuu kala baxay magac aan ahayn magaciisii hore, wuxuuna la baxay magaca Snake. Waqtigaasna markii uu sidaas u faafay website-kaasi, dabcan waxay isdheheen hay'adaha FIB-da iyo kuwa la dagaallama waxyaabaha suuqa madow waxay bilaabeen inay isku dayaan inay website-ka u joojiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. FBI-dina waxay bilowday baaritaanno aad u badan si ay u ogaadaan qofka ka dambeeya website-kaas aadka u halista badan. Waxa ayna u xeelxeeteen inay ogaadaan ninkaas lagu magacaabo Alpha O2 iyo meesha uu degan yahay. Dabcan waxay isku dayeen inay ogaadaan meesha laga maamulo website-kaasi, laakiin ninka Alpha O2 waa uu ka taxadiray in la ogaado barta uu ku sugan yahay ama laga maamulo website-kiisan caan ka baxay. oo marka aad gasho website-kaas dhammaan IP address-ka ama dadka wax kala iibsanaya macquul marnaba ma aha in IP address-kooda aad aragto ama hesho. IP address-ka ay adeegsanayaana waa mid khaldan oo lagu talagalay dadka baaritaanka iyo dabagalka ku haya inay ku jahawareeraan meesha laga leeyahay iyo dhinaca uu jeedo dhanka wax laga soo dirayo qofka wax soo diraya ama qofka wax gadanaya barta uu joogo inay ogaadaanna marnaba wax macquul ma ahayn. Markay arrinkaas ogaadeenna dabcan ciidankii way ka yar caajiseen baaritaankii, laakiin ciidanku markii dambe waxay la yimaadeen fikrad kale taasoo ahayd inay laftirkooda ka iibsadaan website-ka waxyaabo maandooriye ah. Waxa ayna rajeynayeen mar uun inuu ka dhaco qalad yar qofka wax ka gadanaya website-kaas, qaladkaasna ay ka ogaadaan xog ku saabsan qofka iskale website-kan. Laakiin website-kaas si maskax badan ayaa looga shaqeeyay oo loo nashqadeeyay. Waxay ogaadeen qofka wax laga iibinayo baa lagu arki karaa xog ku saabsan halkaasi, laakiin waxba lagama arki karo qofka wax ka gadaya ama macaamiisha qancinaya ama shaqaalaha website-kan ka midka ah. Sidaa darteed ayay ugu adkay ciidanka Mareykanka inay soo xidhaan qof ka mid ah dadka ka shaqeeya website-kani. Ciidankiina waxay sii wadeen fikradoodii ahayd inay website-kaas ka iibsadaan marar badan si ay la kulmaan qalad mar uun ka dhaca dadka halkaas wax ku gada qof ka mid ah, si ay halkaasi uga helaan xog ku filan. Muddo ayayna sii wadeen qorshahoodii ahaa iibsiga ay wax ka dhex iibsadaan website-kan si ay qorshahooda u sii wataan hal marna chance ay uga helaan tuugada burcadda ee maamusha website-kan. Laakiin wax faa'iido ah ma aysan ka gaadhin, waayo ninkii lagu magacaabayay Alpha O2 website-kan wuxuu uga taxadaray si caqliga ka baxsan. Hataa xog yar oo ku saabsanna way ogaan kari waayeen ciidankii tab iyo xeelad walba ay sameeyeen ilaa laga gaaro bishii December ee 2016. Waqtigaasna waxaa nin ka mid ah ciidanka Mareykanka oo la dagaalama maandooriyeyaasha. Ninkaasina isagoo ku dhex jira website-kii lagu magacaabayay Alpha B oo ka iibsanaya waxyaabo maandooriye ah ayaa waxaa soo gaadhay fariin. Fariinta qofka soo dirayna wuxuu ahaa qof aan la garanaynin. Fariintaasna waxay ahayd fariin soo dhaweyna, waxaana ka soo muuqday email-ka uu iska lahaa ninkii lahaa website-kan ama maalgeliyay. qaab qaldan oo loo qastin ayuuna uga soo muuqday email-ka uu iska lahaa ninka la oran jiray Alpha O2. Waxay noqotay arrin la yaab leh ninka sidaas ay shakhsiyadiisu ugu qarsoon tahay ee ay ciidan ku wareereen inay ogaadaan qofka uu yahay. Sidee ciidanka si qaldan loogu soo diray email-kiisa? Balan wax yar idin faahfaahiyo sida uu u dhacay arrinkani. Ninka aasaasay website-kan ee lagu magacaabo Alpha O2 bilowgii website-kan wuxuu ahaa mid dadka soo booqda u dira fariimo uu ku soo dhaweynayo. Fariinta uu u diray dadka cusub ee soo booqda website-kana waxaa xagga hoose kaga qoraa
magaca emailkiisa shakhsigan. Dabcan arrinkan wuxuu ahaa waqtigii u horreysay website-kan bilowga ahaa, laakiin way ogaadeen bilowgii markii u horreysayba emailkii ay ku dirayeen fariimaha inuu ahaa qorshe qaldan. waa ayna ka saareen oo way joojiyeen waqtiga wixii ka dambeeyay emailkii fariimaha ay ugu diri jireen dadka. laakiin waxaa jiray qof soo booqday website-kan bilowgiisii oo fariinta loo soo diray waqtigaas hore. qofkaasina waa save garaystay fariintaas, isaga ayaana u diray oo la wadaagay ninkii ciidanka ahaa fariinta. lama oga sababta uu qofkaasi u sameeyay arrinkaas. waxaa laga yaabaa inuu uusan u qastin oo qofkaas fariinta u diray si uu wax uga iibsado. khaladkaasi in la ogaado emailkiisana ma uusan ka dhicin Alpha O2 ee wax uga dhacay qaladkaas mid ka mid ah dadkii ka midka ahaa macaamiishiisii website ka dhex shaqaysan jirtay. si kastoo ahaataba markay soo gaadhay ninkii booliska ahaa fariintii uu save garaystay fariintii iyo wixii ku qoraa gudaheedaba. askarigaasna ma uusan sameyn wax qaldan oo ka shaki karaan dadkaasi, waa uuna ka taxadiray website-kii message-kii looga soo diray. emailkaas fariinta la socdayna wuxuu ahaa emailka hadda idin muuqdo. dabcan emailkaas ay heleen wuxuu noqon doonaa wadadii ay ku gaadhi lahayn ninkii iska lahaa website-kaas oo lagu magacaabaya Alpha O2. ciidankii FIB aad bay u farxeen waqtigaas si ay u helaan waddo ay ku raadiyaan wax uun. waxayna qaadeen emailkii waxayna raadiyeen waxyaabo ku samaysan emailkaas wax uun ha ahaadee. bilowgiina waxay heleen akoon lagu samaystay oo iskula ballamaan lamaanayaashu oo lagu sameeyay emailkaas 2009. akoonkaasna waxaa iska lahaa qof lagu magacaabo Alexkaasna waa isla ninka lagu magacaabo Alpha O2. waa isla ninka qarsoon ee aasaasay website-kii halista badnaa. sidaasoo kale akoonka waxaa ku qornaa oo ciidanku heleen ninkaas magaalada uu ka soo jeedo oo lagu magacaabay Troslever. waa magaalada uu ku dhashay ninkaas kuna taala dalka Canada. dabcan waqtigaas uu emailkaas ku saameystay akoonkaasi waxay ahayd da'diisu 17 jir, waxayna ahayd sanadkii 2009. waqtigay ciidanku raadinayeen ninkaasna waxay ahayd sanadkii 2016. dabcan ninkaasina uu weynaaday oo ka weynaaday 17. xogtan ay ogaadeen ciidankuna waa xog aad u muhiim ah, laakiin haddana inta ay baxaan ninkan kuma soo qaban karaan xogtan intaan leeg iyo inay ogaadaan waxyaabo kale oo badan. hadda waxay ogaadeen magaciisa beenta oo ah Alpha O2 iyo magaciisa dhabta oo Alex iyo emailkiisa iyo goobta uu ku dhashay. waxaa kaloo emailkiisa ku jirta tirada 91 oo lagu ogaaday inuu ninkani dhashay 1991. sidoo kale waxyaabaha ay ku sii ogaadeen ciidankan ninka la yiraahdo Alpha O2 inuu yahay isla ninka iskale website-kan. waxaa ka mid ahaa waxyaabaha uu sii xaqiijiyay arrintaas muuqaal iyo sawir uu soo dhigay ninkani page uu lahaa waqti hore ka hor. muuqaalkaas oo ku saabsanaa sida la isaga saaro fayrasyada. halkaasna ciidanku waxay ku ogaadeen inuu ninkani yahay isla ninkaas oo uu fahamsan yahay fayrasyada iyo internetka iyo waxaasoo dhan. qoraalka uu soo dhigana wuxuu soo raaciyay isla emailka ay hayeen ciidanku, magaciisa oo dhammaystiran oo ku soo qoray halkaas. sidaasna waxay ku ogaadeen ciidankii xog badan oo ninkaas ku saabsan. kadib waxay raadiyeen inuu emailka waxyaabo kale ku isticmaalo, waxayna ogaadeen akoon PayPal oo ku samaystay emailkaas. halkaasna waxay ku arkeen lacag aan caadi ahayn oo ugu jirta ninkan. sidoo kale waxay heleen Facebookgiisii waxayna ku arkeen halkaas inay ugu qoran tahay shaqo tiknoolajiyadda uu ka shaqeeyo oo madax bannaan. Facebookgiisaasna waxaa laga helay sawir uu kula jiro gabadh. halkaasna waxaa ka cadaatay in gabadhaasi ay tahay gabadha ay wada socdaan ee xaaskiisa ah oo ay ku nooshahay dalka Thailand. waxayna u fahmeen halkaas ciidankaasi inuu ku nool yahay isagiina Thailand. waxay ogaadeen inuu ninkaas ku nool yahay dalka Thailand, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Bangkok. ciidankii Mareykanka iyo FBI-diina waxay wareegeen dalka Thailand. arrinkiina waxay u sheegeen dowladda Thailand oo way kaashadeen iyagana. dowladda Thailandna waxay u sheegtay 3 goobood oo ninkaas ku dhex leeyahay Thailand. 3 meelood oo kala ahaa guri weyn oo Alpha O2 degan yahay, iyo meesha labaad oo ahayd qasri weyn oo qiimihiisu uu yahay $3 milyan, iyo guriga saddexaad oo ahaa isna guriga ku dhex qaato fasaxyadiisa oo ku yaala meel xeeba. sidoo kale waxay ogaadeen in ninkan hantiile yahay uu iska leeyahay gawaari aad u qaali ah. dhammaan xogtaa markay heleen hadda waxa uu hadhan oo kaliya in ninkaas soo qabtaan ay u tagaan. laakiin hadda isleedihiin maxay ugu tagi waayeen ninkaas si fudud ugu soo qaban waayeen. dabcan arrintu sidaas ma fududa. iyagoo waxaasoo xoga ka haya haddana ma caddayn karaan inuu yahay ninkani dambiilaha iskale website-kan ilaa ay helaan oo ay qabtaan laptopkiisa oo furan mooyaane. waa qasab inay ninkaas laptopkiisu furan yahay qabtaan, haddii kale macquul maaha ninkaas in lagu furo hal dembina Allah ka yeelay keys ah, sababtoo ah kombiyuutarkiisu ugu kaydsan yihiin wax walba oo xog ah.
ha ahaadaan baasboorro iyo faylo. wax walba oo faylal laabtoobkiisa ayay u kaydsan yihiin. mar hadduu ka kaco laabtoobkaas uu xidhana cid kasta oo furi karta oo awood u lehna ma jirto, lamana helayo, macquul maaha. marka ciidanku waxay ka fikirayeen fikradda ay ku heli lahaayeen ninkaas laabtoobkiisa oo furan ay u qabtaan ninkan dambiilaha oo lagu caddeeyo dambiyadiisa oo dhan. ciidankuna muddo dheer ayay ahaayeen qaar shaqo haya ninkaas oo keliya la socda dhaqdhaqaaqiisa iyagoon waxba ka qaban karin. waqtigaasoo dhanna waxay ahaayeen qaar aan firqaadin oo keliya isha kala socda, waqtiga ugu habboonna sugaya. muddo kooban ka hor inta ayna fulinin ciidanka qorshahoogiina, maalin maalmaha ka mid a waxaa jira koox ciidanka Mareykanka ka tirsan oo fadhiya meelaha lagu soo dhoweeyo dadka hoteelada. kadibna ninka lagu magacaabo Alpha Otto ayaa kasoo degay gaadhigiisa oo soo galay hoteelkii. dabcan muuna dareensanayn ninkan inay raggan meesha fadhiya yihiin ciidan oo u tashanaya isaga, laakiin waxaa u yimid qof isaga u fadhiya meeshan, waxayna ka wada hadleen howlo ganacsiyo. kadib hawshiisii ayuu dhammaystay meeshii ayuuna ka baxay isaga oona ogeyn waqtiga aadka u xun ee sugaya. ciidankii waxay go'aansadeen inay ninkan soo afjaraan arrinkiisa oo ay dhigaan qorshihii ay kusoo gabagayn lahaayeen ninkaasi. waqtigaasna ciidamada Mareykanku waxay kaashadeen dowlado gaadhaya 7 dowladood si ay u soo qabtaan oo qorshe fiican ugu dhigaan ninkaas. طبعا halkaas waxaad ka fahmi kartaa ninka qabashadiisu ilaa xad ay muhiim ahayd. sidaan mar hore soo sheegnayna waxay rabeen ninkaas inay qabtaan isagoo laabtoobkiisu uu daaran yahay si ay u helaan caddeemo ay kusoo ogaan ninkaas una tirtiraan website-kan halista badan. website-kaas wuxuu ahaa waqtigaas website-ka ugu weyn dark web-ka ama internet-ka madow oo kale. Alpha Otto ama Alex muuna ogeyn gebi ahaan qorshahan loo maleegayo iyo ciidanka ku daba jira. maalinkii taariikhda ay ku beegnay 5 July sanadkii 2017. maalinkaas waxay ahayd maalinkii ay ciidanku qorshaysteen howlgalkii ay kusoo qaban lahaayeen ninkan. ciidamada Mareykankuna waxay kaashanayeen dowladda Thailand, waxayna go'aansadeen inay u diraan guriga ninkaas gaadhigaas oo ay wadato gabadh da'weyn. gabadhaas oo duqeynaysa ama jiirsiinaysa gaadhigaasi guriga. gabadhiina way baxday oo waxay ka haysatay gaadhigii, waxa ayna iska dhigaysay inay gaadhigaas ku kala jeedinayso guriga ninkaas hortiisa si uu u moodo inay si khaldan ugu dhufatay gaadhiga albaabka iyadoo dib u soo baxaysa. marka uu maqlay Alex codka duqeynta, waa uu soo kacay si uu u eego codkaasi waxa uu yahay. waqtigaasna waxaa u furaa laabtoobkiisa, waxa uuna ku jiray application-kii ama website-kii lagu magacaabayay Alphabet. Alex waa uu ka soo baxay gurigii waxa uuna arkay gabadhan da'da weyn ee jiirsisay gurigiisa gaadhiga. markii uu soo baxay uu arkay inay rag ku soo socdaana waxa uu soo baxsaday mobilkiisa waxa uuna isku dayay laabtoobkiisa inuu halkan ka damiyo, balse midaas ma aysan dhicin. waxaa lagu sameeyay ciidankii ayaa ku soo yaacay waa ayna qabteen. tab iyo xeelad walba uu laabtoobka ku damin karana waa uu siiyay. muuqaalkan aad u jeedaan waa Alpha oo isla ciidanka ka baxso hal mar uuna laabtoobkaas dami maray ahaataba, balse midaas ma aysan dhicin oo ciidankii Alex gacanta ayay ku dhigeen waa ayna qabteen. laakiin ciidanku goobtaas way ku diyaarsanayeen oo way ku goobteen markii uu carar siday oo laabtoobka baktay. laabtoobkaas haddii uu baktiin la wax xog ama cadeyna lagama heleen ama kiis cad oo ninkaas lagu maxkamadeeyo. ciidankiina guriga ayay ku carareen iyagoo rajeynaya inuu kombiyuutarkiisu furan yahay. dabcan waxa ayna gaadheen meeshii kombiyuutarka oo shidan, halkaasna waxa ay ka heleen dhammaan iimayladii iyo faylalkii sirta ahaa iyo dadka wax ku dhex iibiya website-kaas dhammaantood meesha ay kala joogaan iyo xog kasta oo ninkaasi uu leeyahay. waxaana la helay dhammaan bangiyada uu leeyahay ninkani ay lacagtani ugu jirto, iyadoo laga helay bangiyadiisa lacag gaadhaysa $23 milyan iyo sidoo kale 10 Bitcoin uu ninkaasi lahaa. waana la xidhay isaga iyo xaaskiisiiba, waxaana la ogaaday iyaduna inay la shaqayso oo shaqooyinkiisa ka caawiso. hal isbuuc kadib kolkii la soo qabtay ninkii la oran jiray Alpha Otto ama Alex, waxa uu isku dilay xabsiga dhexdiisa. halkaas ayay ku dhamaatay qisadii ninkii ugu weynaa ee soo mara taariikhda dark web-ka. halkaas ayaana website-kiisii lagu xidhay. laakiin wax la yaab leh ayaa dhacay 2021. dib ayaa loo soo furay website-kii lagu magacaabayay Alphabet, waxaana lagu soo celiyay dark web-ka ilaa iyo maantana uu jira oo uu shaqeeyaa. intaas ayuu ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin inaad saarto channelkeena subscribe, like-tana aadna siiso sababtoo waxay noo tahay dhiirigelin. waxaa kaloon daawadayaal idin sheegayaa muuqaalada waa aan ku cusbahay, haddii qaladaad yar uu jiro ama waxyaabaha qaar aan qalqaldayo waad ii sheegi kartaan barta hoose ee commentiga ayaadna igula soo socodsiin kartaan. dhammaantiin waad mahadsantihiin.